Taliyaha ciidanka Booliska Somaliland Abdullahi Fadal Imaan ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee dalka gudihiisa isagoo sheegay inay si xooggan ugu dadaalayaan howlgallada ay ka fulinayaan magaalooyinka gudihiisa sidoo kalena taliyuhu waxa uu ka dhawaajiyay in dambiilayaal ay howlgalkooda ku soo qabqabteen la xukumay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa laakiin habeen hore ugu dambeysay iyo xalayba wiigan ilaa dhowr iyo 3 baa la xukumay qaar sanad xukunno kala duwan ay ku dhaceen qorshayaasha nooga yaalla waxa weeye ciidii fal dambi gasha waxa weeye booliisku sidoo 6 subaxnimo u bilaabo maalin iyo habeen oo aragtay in suuqa batuuliye gaadi wareegaya waxyaalahaas dhalinyarada qodoma cid kasta oo nabadgelyada u xidhmasa waa hawshan qaranka ugu xil saaranay iyo shacabka reer Somaliland waxa uu imaan ka qabanay waa dadaalna waa laga yaabaa ninka deefalka galaya inuu mar meel ka yar leexdo wax sameeyo laakiin dadaalka iyagu ma yara dhalinyaro badan kooxahaas aanu geeyno iyagu dhexdooda dilayay waxaanu qaar moobilada lagu hayo gaadiidka oo ka war haysan farsamo aynaan aragoo wax hadaanu helay sharciga la horgeeyay kullay waa dadaalna waxna kala harimayno anagu ilaahay tala saarana inta wax weey qofku haduu falo abaabunay ama macmal ha qaato mid daba ha qaatay waa waajibka ciidanka booliska kii lagu qabtana waxa weey qodobka cusbayno loogu daraa qaar lagu qabtay way jiraan sharcigaana horgeynay maxkamadaha iyo xeeraantana waan mahad celinayaa xukun adag bay ku rideen waana uga dagayaa cid arrimaha isticmaasha waxa weeyaan uu falku dhaco wax kasta nooc kasta loo adeegsado qofku isagoo hubsidna uu galaa isagoo waxyaalaha sir uu galaa waayo tan qaar nool baan ku qabanay iyagoo istoo ku isticmaal ku baaranaya assalaamu calaykum ciidamada booliska Somaliland ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo adag ka waday gudaha magaalooyinka Somaliland iyagoo bartilmaameedsanaya dhalinyar ku fogaan inay shacabka baadhaan isla markaasna qaarkood ay gacanta ku soo dhigeen waa Maxamed Abdi Abdullahi Maxamed Andar Somaliland Space Channel magaalada Hargeysa.